dharbaaxadii ka dhacday munaasabadii Oscar-ka ee xalay. Aktarka caanka ah ee Will Smith ayaa xalay munaasabadii Oscar-ka ku dharbaaxay komediyanka caanka ah Chris Rock kadib markii uu aflagaaday xaaska Will Smith, Jada Pinkett Smith, kuna sheegay in xaaska Will Smith ay bidaar leedahay iyadoo la og yahay in ay qabto cudur sababa in ay timaha soo daataan, cudurka oo loo yaqaano alopecia. taa oo Will Smith aad uga carooday kadibna abaaray Chris Rock asigoo masraxa saaran oo wali la hadlaaya kasoo qaybgalayaasha munaasabada Oscar-ka. kadibna waxa uu dharbaaxo kulul ku dhuftay Chris Rock. dhacdadan ayaa waxay sababtay in la joojiyo munaasabada Oscar-ka xoogaa daqiiqada ah, waxaana ay xaqiijiyeen Entertainment Tonight oo ah idaacadda ku hadasha afafka jilayaasha iyo fanaaniinta in aktarka Denzel Washington iyo Tyler Perry ay arrinta qaboojiyeen. waxaana la arkayay muuqaal Will Smith iyo Denzel Washington iyo Tyler Perry oo wada hadlaya. balse waxaa cajiib ah oo dadka in badan ay isweydiinayeen dhacdadan ka hor sababta uu Will Smith wali uu ula nool yahay xaaskiisa Jada Pinkett Smith iyadoo la og yahay in ay horey u sameysay gogol dhaaf. taas wax lala yaabo ma ahan oo awalba gaalo dhaqan xumida waa lagu yaqaanay. waxaa kaloo la soo sheegayaa in raabarka caanka ah ee P. Diddy sheegay in la heshiisiyey Will Smith iyo Chris Rock. fadlan haddii aad muuqaalkan daawato subscribe inoo saar, like-na inoo saar, waa sida kaliya uu uga soo muuqan karo muuqaalada kale ee YouTube-ka. waa Liibaan Caraale, ismaqal dambe hadduu alla idmo.